السلام الله عليكم وعنا ونكسن في نمو ونكسن دمانتين انتنا داونيسا ku xiran channelkeena Binind Official waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdo saakayso muxuu ahaa ifbaxday oo ku saabsanayd barnaamij u dhaxeeyay Liilwaanka iyo mataqaanaa ninka la yiraahdo Ali Germany iyo madaxa YouTube-ka Binind ilmawaay sidii warka hordhac ahaa lagu sheegay in muxuu ahay Liilmaanka iyo Ali ay ka tageen shaqadii oo shaqo joojin lagu sameeyay asbaabtuna ay ahayd inay keeneen muxuu ahay xadgudub taasoo muxuu ahay qaraarkii laga qaatay oo noqday in shaqada laga joojiyo sidoo kale waxaan maqlaynay warar ka imaaday oo falcelin ah dhinaca Liilmaanka oo sheegayay muxuu ahay inuu isagu ahay macalinkeeni uu yahay mataqaanaa anagana ku caasinay waxyaabo noocaas ah iyo Sakariya oo ku tilmaamay inuu yahay shakhsi la soo adeegsaday horta waa ka xumahay waxyaabahaas qadafka ah muxuu ahay uu ku kacay walaalkeen saaxiibkeen Liilmaanka haddii ay jirto in muxuu ahay caasinimo ay dhacayso ninka caasiyay Liilmaanka waaye maxaa yeelay ninkii aan aqoonin in camera la soo hor fariisto oo muxuu ahay aan soo barnay inaan muxuu ahay aan ku dhiirigelino inuu kamerada hor yimaado oo clip duubo oo aan barnay xirfad muxuu ahay shalay uusan ku fikireynin in YouTube muxuu ahay la isticmaalo ama lagu shaqeysan karo uusan shalay aqoonin aan barnay in maxaa la yiraahdaa markii uu isiri alxamdulillah waxa fahamtay bedelkoona dhihi lahaa jazaakallahu khayr oo ana lugayga ku istaagan rabaa wuxuu noogu abaalguday in anaga uu qas iyo muxuu ahay iyo dabarog nagu sameeyo taasoo muxuu ahay keentay ugu dambeyntii inaan niraahno walaalo iska fariiso shaqadii hadda si kale aan u waxayno marka dabcan qofka markii oo dhaliil ay timaado oo lagu qabto pointi inta muxuu ahay mushkiladda ay jirto ama ay hor leedahay waxa laga yaabaa inaan la hadlin ama qofka oo san dib sheegan laakiin markii oo ay timaado xaqiiqada dhabta ah inuu qofka asoo iska bariyeelayo ama rabo inuu noqdo qofkii wanaagsana ayaa uu sheegaya waxyaabo shalay uusan sheegin ama uusan ku dhiiranayn marka Liilmaanka waxaan leenahay walaalkayo sabar iimaankana Allah ku geliyo annaka wax adikaaga aan soo soconin ma jirin sharaftaada ku ciyaareenina ma jirin macallinimo oo macallin oo ahayd kugu jisaanana ma jirto ninka aan shalay muxuu ahay aan ku dhiirigelinay inaan soo gacan qabano oo kamerada aan barno oo muxuu ahay oo wajigiisii aan dadka hor keenay oo aan dadka ka gadnay oo dadka barnay adiga waaye maantana asla adiga aan ugu jisaaray marka taas iyadoo dhacdana waxba kama qabno walaal jiraa ku leenahay haddii aad wili diyaar u tahay muxuu ahay inaan ku sii gacan qabanana anaga xageena diyaar ay ka tahay mar walba ku soo dhaweynaynaa cadaawadda adii aanu qabtana anaga kuma qabno marka waxaan leeyahay daawadayaashii ku mashquulin in muxuu ahay warkaasi uu yahay war macno leh hadda muxuu ahay oo lagu kala irdhoobay waa saqiir iska hadlo waaye marka waxaan leeyahay Liilmaanka soo barbaar waana mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.